رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan jeclaystay inaan la wadaago arrin muhiima taasoo ah ku saabsan qisadii Cumar bin Khattab radiyallahu anhu. waxaa laga soo wariyay Cumar bin Khattab radiyallahu anhu inuu habeen ka mid ah habeenada isagoo soconaya ayaa wuxuu ku soo baxay inan yar oo tukanaya, inan yar oo salaatuleyl tukanaya ayuu ku soo baxay. wuxuu akhriyay سورة الطور أيو أخرياي سوى قال إن عذاب ربك لواقع. أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبو نقضي حافظي أيو كن نقضي تبتنا واحا نصضي بالله يوحن السناي تدكنا ويسوبوا قناي منينا قرنين تدكو وحا حيا وحكا نصضي وفهمي قرآن وحكا هذاي qalbigiisa ka buuxay, iimaanka ayaa ka buuxay. innaga miyaa haddii soddonka jisbaleyna ku dul akhriyo qaariga ugu codka macaana loo dhiibo qalbigeenu qalbi ma aha khushuuci galayso oo ku qaboobaya oo fahmaya oo ku tadabburaya qur-aanka ma aha. marka waxay ahaayeen saxaabadu radiyallahu canhum dad u jeestay aakhira ay ahaayeen, dad aakhira doonaya oo doonaya inay aakhira ka meel gaadhaan oo aakhira jecel ay ahaayeen. innaguna waxay noqonay dad adduunyo ayay noqonay, dad u jeeda ururinta adduunyada oo aan aakhira u jeedin ayay nahay. iyaguna waxay ahayn dad aakhiro. marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo qur-aanka kariimka ayaa loo baahan yahay, lagu tadabburo, la dhigto macnihiisa iyo laftigiisaba la barto. kadibta qofkii ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa awgeliyey naxariis waa ku tadabburaya, waa fahmaya insha allah. markaa saas ayaa loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay khayrka in loo tartamo ayaa loo baahan yahay.